markale ku soo noqod wanaagsan maanta filimkan idin wada wuxuu ku bilaabanayaa gabar yar oo markaas dhacaraysa kaynta waxaana markaan aragnaa guriga ee markaas degan tahay gabadhana waxaa lagu magacaabaa Susan waxaana markaas jajaraysa joornaal markaas uu ku yaalay guri waxaana markaas la hadlay ninkeeda waxaana markaas ku leeyahay waan halkaan isaga tagnaa laakiin ninkan waxaa lagu magacaabaa George isagoo markaas doonaya inuu la safro xaaskiisa iyo gabadhiisa markaa ninkii George waa uu soo baxay isagoo markaas uu maanay gabadhiisa bas markaan gabadhiisa waxa lagu magacaabaa Amy hadda George iyo Susan iyo gabadhiisa Amy waxay markaan ku safriyaan baabuurkooda intay markaas ay sii socdeen waxay markaan ku soo laxdeen maqaayad si halkaas ugu cunteeyaan waxay markaan bilaabeen inay fariistaan miis si halkaas ugu qadeeyaan laakiin Amy markaan wax arkaysan in halkaas fadhiyay wajigiisana si lama filaan ayuu markaas isku bedelaya gabadhii Amy markaan way cabsatay laakiin hooyadeeda ma rumaysna arrintaasi markaan way soo bixin iyagoo markaas soo dhaqaajiyay Amy markaan waxay u sheegaysaa aabaheeda inay markaan doonayso inaysan markaan degan guri markaas ku yaala meel cidla ah laakiin aabaheeda George ayaa markaas u sheegay inuu mar hore qorsheeyay guriga markaas ay degi lahaayeen markaan si ay safarkii u soo wadeen markaan ugu dambeeyay waxay soo gaareen guriga markaas ay ku dalxiisi lahaayeen waxaana markaan halkaas ku qornaa qiimaha guriga waxayna markaan ugu dambeeyay soo gaareen gurigii waxay markaan ka soo digeen gaarigooda iyagoo markaas gudaha u soo galay gurigii laakiin gurigana wax u muuqda mid qadiimi ah laakiin markii ay soo gaareen gurigooda waxay markaan ka soo digeen baabuurkii waxay markaan halkaas kula kulmeen ninkii markaas lahaa guriga waxayna bilaabeen inay markaan la heshiiyaan markay la heshiiyeen ninkii markaas guriga lahaa way soo dhaqaajiyeen si ay markaas u sii wataan dalxiiskooda laakiin intii ay markaan wadadii sii socdeen waxay markaan gaar ku dhufteen gabar markaas halkaas socotay waxayna markaas u geysteen shil xoogan intaas kadib aad bay u shoogeen iyagoo markaas la yaabeen shilka xun oo markaas u geysteen gabadhan laakiin run ahaantii qoyska markaan halkaan kula kulmeen waxa ay ahaayeen qoys markaas iyagan halkaan soo booqday waxayna markaan ugu dambeeyay halkaas ka soo wadeen gabadhii ay markaas ku dhufanayeen gaariga waxayna markaan soo aadiyeen gurigii laakiin markaan waxay ku soo laabteen gurigii markii ay gurigii yimaadeen waxay markaas keeneen gabadhii markaan waxa ka muuqata cabsi badan iyadoo markaas halkaas ku arkaysan in markaas aan la arki karin intay markaas ay guri ku jireen waxay markaas banaan ku arkeen qof halkaas wareegaya waayna soo baxeen waxayna markaan ogaadeen inay gabadhaas tahay gabadhii Amy waxayna markaas ka soo joogeen gurigooda iyagoo markaas la yaaban sababta markaas ay gabdheedu waxaan u sameynaysaa waxayna markaan is weydiiyeen su'aalo badan waxay markaan u muuqataa gurigan ay hadda soo digeen inuu markaan yahay guri mucjiso ah inkastoo markaan ay halkaan la joogaan family cusub intaas kadib familkii ayaga waxay bilaabeen inay markaan waqti wada qaataan waxayna markaan bilaabeen inay markaan falaaqeeyaan waxyaabaha halkaan ka socda iyadoo markaas George gabadhiisa ay markaan isku bedeshay nooc kale waxayna markaan noqotay mid gabi ahaanteed beddelanta laakiin markaas naakamanteed qoyskii kale ayaa markaan bilaabaysa inay markaas furto dambiil halkaas taalay waxayna halkaas ku arkaysaa waxyaalo la yaab leh oo markaas jajabsanaa waxayna markaan la yaabaysaa sababta markaas waxyaabahan halkaan loo geliyay laakiin waxa su'aalihii ay qabtay markaas ugu jawaabaysa gabadhii yarayd ee Amy waxayna ku leedahay waxaan adiga ma fahmi kartid maxaa yeelay waxa loogu talagalay dad gaar ah oo kaliya markaan waatan hooyada Susan iyadoo markaas la yaaban waxa kaan ka socda waxay markaan isku duubaysaa busto waxaana markaan ogaanaynaa in markaan naagtii qoys kale ka mid ah markaas lagu magacaabo Geeli waxaana markaan la gaaray waqtiga maghribka iyadoo markaas uu galay habeenkii laakiin markaan waxay dareemayaan cabsi badan inkastoo markaas iska sheekaysanayaan laakiin markaan waxa halkaas la joogtay gabadhii yareed balse gabadhan yar waxay markaan u muuqataa mid aan caadi ahayn iyadoo markaas marba si isku bedelaysa waxaana markaan aragnaa Susan oo markaas jeefta waxayna markaan ku riyoonaysaa ninkii George oo markaan dilay gabadheeda laakiin markaan waxa la aragnaa ninkii George oo markaas hurdada ka kiciyay naagtiisa waxaana markaan ku leeyahay maxaa ka qaldan oo xilligan la jeefta waayna soo kacayaan iyagoo markaas fiirinaya dambiishii markaas alaabta laga soo bixinayay waxayna markaas la yaabayaan waxa halkaan laga soo bixiyay inkastoo markaan ninkii George oo markaan bilaab inuu xirto garka isagoo markaas u sheekeynaya saaxiibkiisa Susan laakiin intaas kadib Susan waa ay soo baxday laakiin waxay halkaas kula kulantay qoys kale oo markaas qori ku qabtay waxayna markaas ku yiraahdeen halkaadaan oo soo dhaafin intaas kadib waxay ku soo laabatay gurigii laakiin intii markaas ay muraad isku fiirinaysay waxay markaas galaashada ka aragtay naag kale oo la yaab leh intaas kadib waxay markaan ku soo laabatay guriga waxayna markaan bilowday inay markaan ka taqalusto mid ka mid ah qoyskii markaas iyaga la socday iyadoo markaas halkaas ku soo afjartay laakiin markaan waxa halkaas ku arkay ninkii George isagoo markaas la yaabaya waxa uu ku leeyahay maxaa sidaan u sameynaysaa waxaana markaan ogaaday inay markaan halkaan wax badan ka qaldan yihiin waxaana markaan ninkii George u soo baxaya banaankaas oo markaas arrintaas u sahmiyo waxaana markaan ogaanaya markaan gadaashiisa la taagan yahay waxaana markaan soo wajahaysa cabsi badan isagoo markaas arrintaas aad u yaaban laakiin markaan ninkii George waxa markaan halkaas la joogay xaaskiisa iyo gabadhiisa yareed waxaana markaan u imaanaya xaaskiisa waxaana markaan soo qabanaya gabadhiisa isagoo markaas halkaas ku taqalusaya waxaana ku dilaya halkaas waxayna markaan xaaskiisa bilaabaysaa inay markaan xabad laqsiiso iyadoo markaas halkaas ku dilaysa
intaas kadib xaaskiisii waa ay dhacaysaa iyadoo markaasi miir daboolmaysa waxayna markaana dareemaysaa in markaana halkaas iyada laga afduubanaya waxaana markaasi soo afduubanaysa qolo kale oo markaasi aysan garanaynin waxayna markaana ogaanaysaa inuu markaana qorshahan uu dhan ka dambeeyey qoyskii markaasi ay halkaan ugu imaanayeen waxayna markaana bilaabeen inay markaasi gaari ku afduubtaan iyagoo markaasi maqas ku jarjaraya waxaana markaana halkaasi ku dhammaaday filimkii waxaana markaana lagu magacaabaa filimkani Wrong House isagoo markaasi soo baxay sanadii 2012 maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas weyn baadiino